السلام عليكم أصحابتا وأنا إسلامي كان waxaa la yiraahdaa qabiilka official waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe igu caabisaan like saartaan share-ta comment-ya wax walbo maartay oo fikrad ah haysiine hadii maartay ay noqoto cashir kale oo maartay maxaa aad u baahantiin oo kale comment-ga igu soo reeba asxaabta channel-kan maxaa ii kala kiciya maanta waxaan sharaxayaa cashirkaas oo ku saabsan Gmail horey ayaan kasoo hadlay qaabka loo waxeeyo Gmail-ka haddii aad u baahan tahana wuxuu ku jiraa YouTube channel-kan ku jiraa qaabka loo waxeeyo Gmail-ka waan kasoo hadlay maanta waxaan ka hadlayaa sida loo isticmaalo Gmail runtii Gmail-ka wuxuu leeyahay qaabab oo dhowr xaba ayuu leeyahay adiga 5 qaab meelahaas 5 part meelahaas ayuu leeyahay 5ta part baa marka hore ugu horeyso aan sharaxayaa first ugu horeyso Gmail-ka waa inaad leedahay account waa inaad Gmail-ka ka leedahay haddii aadan Gmail-ka aadan account ka lahayn dee Gmail ma isticmaali kartid waaye marka account-kaas qaabkii loo waxeeyana waan kasoo hadlay cashir hore aan kasoo hadlay ayuu maartay maxaa ka mid ahaa marka hadda waxaan ka hadlayaa qaabka sida loo isticmaalo marka la yiraahdo waxaan sida loo isticmaalo iyo sida loo waxeeyo waa laba shaqo waa laba different laba farqi u dhaxeeyo waaye waa laba shaqo qaabkan waa qaab loo waxeeyo qaabkan waa qaab loo isticmaalo marka waxaan ka soo hadlay qaabka loo waxeeyo cashirkan wuxuu la socdaa cashirkii hore wuxuu ahaa qaabka loo waxeeyo maantana waxaan ka hadlayaa qaabka loo isticmaalo waxaa soo kacsanaysaa google-ga soo kacsanaysaa google-ha haddana waxaan isticmaalayaa Google Firefox ayaan isticmaalayaa google-ha waa adi dhowr xabo waaye Google Chrome iyo Google caadi ah inta midkaad rabtid maartay maxaa waad ka soo kacsan kartaa markaad saa u soo kacsatid waxaad tagaysaa markii uu kugu soo kaco Gmail-ka halkaas wax ku qoraysaa Gmail baa ku qoraysaa Gmail waa kaasa Gmail marka saas ugu qoran yahay waad ugu dhufanaysaa marka saas ugu dhufisid Gmail-ka ayuu soo kicinayaa aniga hadda waaba ii kacsan yahay waa kaasa Gmail-kii markii uu soo kiciyo Gmail-ka saan oo kale u soo kicinayaa waa kaasa Gmail waa kaasa magaca Gmail-kana waa kaasa Gmail qofkii aan garanaynin waxa rabo inaan u faa'iideeyo Gmail horta sidiisa ma ahan magac caadi ah waa wax maartay adiga magac oo kale intaad maartay dhigtid oo laba lambar raacsiisid gmail.com taas camal baa Gmail la yiraahdaa marka profile-kiigana waa kaasa marka waxaan ka hadlayaa Gmail-ka sida loo isticmaalo Gmail-ka wuxuu leeyahay 5 part ayuu leeyahay 5 part ayaa ugu muhiimsan 5ta part oo ugu muhiimsan baa idin sharaxayaa part-ka koowaad waa kana waxaa la yiraahdaa inbox waa taqaantaano maaseedka caadiga oo telefoonka maartay markii maaseed lagu soo diro boqoshada kale lagu soo diro wuxuu ku leeyahay inbox waa wax adi maartay maxaa lagu soo diro waaye wax walbo lagu soo diro waxaa la yiraahdaa inbox marka waa maaseed lagu soo diro oo aad maartay aad hesho inbox ayaa la yiraahdaa waxa kaloo jira draft-yan wuxuu yahay isaga waxa weeye waa markii maaseedka aad qortid maaseedkii adoo qorayo baa qadkii kaa tagay ama mobilkii ayaa kaa damay mobilkii hadduu mobilkii uu kaa damo ama qadkii uu kaa tago oo kale draft-yaas ayuu gelayaa maaseedkii aad qoraysay wax walba uu noqdo waa wax aad u muhiimsan waayo adigoo qoraal wada qoraalkii wax yar markay ka dhiman tahay baa maartay mobilkii kaa damay ama qadkii kaa tagay cashirkaasi wadnaa marka draft-gaas waa ka soo hadlay waa kaasa maxaa wixii aad maartay aad qoray markii aad qortay ma aad dhameynin mobilkii kaa damay ama qadkii kaa tagay markaas dadis waxay galayaan draft-gaas ay galayaan waxa kaloo jira waxa la yiraahdo maartay maxaa halkan trashta ku qoran tahay trashtina waxa weeye waa waxa la yiraahdaa meelaha maartay hadda tusaale oo kale waa meelaha qashinka lagu rido kale maartay maxaa baa la yiraahdaa
mobiiladan iyo laptopmadan waxaa la dhahaa recycle bin. Gmailkana wuxuu u taagan yahay trusty waa maasiidyada aad dhileeday baa maaragtay maxaa ahaa halkaas gelayaan, wax walbo maasiyada aad dhileeday meeshaasay gelayaan. Kaasina waa qodobka kale oo maaragtay maxaa ahaa rabo inaan ka hadlo waxa weeye sidee baa loo diri karaa maasiyad, qaabka maasiyad loo diri karo. runtii markii maasiyad la diraayo oo Gmail laga diraayo ma ahan WhatsApp oo kale, ma ahan Facebook Messenger oo kale, Twitter oo kale, wax maasiyad la diraayo kale ma ahan. Gmailka markii maasiyad la diraayo wuxuu leeyahay qaab gooni oo loo diro. halkaas ay ku qoran tahay compass, meeshaas ay ku qoran tahay compass oo falaartaas ah oo balasta ah baad ku dhufanaysaa. mobiilada markii oo aad mobiil aad ka diri sidoo kalena balas bay maaragtay maxaa ahaa balastaas una dhag ku siinaysaa. balaskaas markaad dhag ku siisid waa kana waa kuu soo baxay. markii uu kuu soo baxay halkaas waxaa ku qoran to baa ku qoran, halkaasna waxaa ku qoran subject. to waxa weeye waa qofka aad u diraysid waaye, Gmailka qofka aad u diraysid waaye. subjectna waxa weeye wax aad diraysid, maxaad diraysaa, ma sawir baad diraysaa, ma qoraal baad diraysaa, ma lambar baad diraysaa. koley waxaa la diraayo markii wax diris la yiraahdo way badan yihiin. marka halkaas Gmailka gelinay tusaale ayaan siinayaa. Gmailkaad rabtid baad maaragtay maxaa wax u diri kartaa. tusaale kale hadda waxaan dirayaa Gmailkan islaan Gmailkaygii waaye, qabiirka official 80gmail.com. Gmailka qodobkiisa kalena waxa weeye shuruudiisa kale waxa weeye Gmailka wax space ma laha. Gmailka waa qoraal low ilaa dhamaad ah, wax space kale ma laha. tusaale kale qabiirka official 80 waaye, qabiirka waa space, official waa space, 80 waa space kale. laakiin Gmail markaad maaragtay maxaa diris wax space la yiraahdo maaha. haddaad Gmail space u dhexaysiisid Gmailkaas waa wax noqonaya Gmail qalad ah. halkan soo galo, halkan subject ku qoran. subject waxaad diraysid waaye, maxaad diraysaa, sawir baad diraysaa. qaabka sawir loo dirana waa idin tusaa. sawir markaad diraysid oo kale halkaas meeshaas maaragtay aad dhag ku dhufanaysaa. markii aad ku dhufatid waa kaasa waxaad diraysaa horta muxuu yahay. sawiraan dirayaa, waxaan dirayaa maaragtay maxaa ahaa cashir aan diyaariyo oo kale, waxaan dirayaa oo kale video baan dirayaa, maqal baan dirayaa, wax walba meeshaas waaye. maqal hadaad diraysid waa halkaas, haddaad maaragtay video diraysid waa halkaas, picture hadaad diraysid waa halkaas. anigu waxaan maaragtay maxaan dirayaa sawiraan dirayaa tusaale oo kale, waa kaas sawirkaad dooqanaysaa. sawirkii markii aad dooqatid halkan magaca ku qoran tahay full name, waa kaas sawirkii magac wax ku qoran baa maaragtay maxaa ii soo baxay. mis open baa leeyahay. open markaad dhaho wuu iisoo furmayaa oo wuxuu iisoo gelayaa meeshii aan u baahnaa buu iisoo gelaa. markuu iisoo galo waa kana qoraalkaas yar buu waxyaas yarka buu wadaa, waxyarkaas uu wadaa. waxyarka markii uu dhameeyo maaragtay maxaa ahaa asaga markuu dhameeyo baan dirayaa. laakiin halkan waxaa ku qoraysaa muhiimadda waxa weeye halkan maxaa ku qoraysaa mataqaantaa. sawir baan diray, sawir maaragtay maxaa ahaa waa badan yahay sawirkaad diraysid oo kale. hadda tusaale oo kale macallin baa wuxuu ku yidhi sawir iisoo dir. Gmailka waxaa isticmaala malaayiin dada baa isticmaala. marka sawirka u diraysid hadduusan tixraac lahayn macallinka ama qofka u diraysid